سيدي أدو قال لي دين سكر درن ولا بلاب كل بند أقول لي دين وحن خير محياتي خاتم استيت الصومالية وقعن أنا أقول باقية واللي نكسو الدولي حقدرها اللي نكوين إلهي حقه وهيل الميسو إذن له وهيل الميسان كو حقدرها كسعودة ونقول لساننا ونقول لساننا وبالله التوفيق. وأنا السلام يا بقول يا فريق طبعاً وحي وربحنا وحد مويه مدحوينا محمد يوسف وحنو إن يربان كتاريا خساره كل ما سبنا أنت على شيء وأنت حقه ده أرجني وحكى لو ترى محابيس نور ولا قبته كأرك دونتان تيفيه ده يو ولا نقارين يا سيدو ده أنا منهم مال في عم بيشون عم ونكسب بيكشران وإسكابعيان dadkii reer Buuhoodle sida aad ku taqeeneen jab iyo halaag baa ku dhacay oo idinka maqlaya ama arki doona dhalooyinka baabuurta laga gubay iyo kuwa laga qabtay iyo maxaabiista khasaarahana dib baa la idinka soo sheegi doonaa kulay ma yaraan maleynaya waayo iska nimankaasi ما دبابة مركه هذا وصار دبابة عيال مركه دمنا هو يصير دبابة عيال طبعا دبابة كذا خسارة بدنية بالو شيء واحد مدة بيرها وقوي تجاه إن أنا هو هذا لما يوحك مبدأهان هذه وأي شيء ترى سكوارني وريه إن وارم بارلان واش نقارنا ما قب سنكرتال ما نهاي سنكرتال اسمه قومي سنكرتال هدي أنا أول قلية كلا مامور كلا وكتير سنة باش التاني هذا مامور وقاري سمايستي وهذا لا سعطة أنا جو مامور قاري سمايستني وغير معقول إن دول ما دعي دونتو إنت على ورقة كمدي إن لا هيستو صورة قال من نقاريسو وسيف ذي أنا قلنا نبض بانو سيدي الشيخني نبض بانو شعلين لو ذا نورادو نبض بانو وباقينا هدي تالو وياه كلي دجال وانا قانا معنيس وحنا نقد هذا المايان ساس يو نبض قلي أيام لا وياش كلا أيام نقب حياة وعصبات دت كان أبريء waxayna go'aansadeen inay iskood u madax banaanaadaan lugahooda isku taagaan waxay mar walba ayna lagu celcelinayaan wixii mas'uula ee magaca Khaatuma State of Somalia ku hadlaya inay nabad rabaan inay iyakuna nabad gudahooda ku wada noolaadaan maamulada dhinacyada ka xigana nabad kula noolaadaan dalka aanu dariska nahay ee Ethiopia aanu nabad kula wada noolaano intaas waa taanu mar walba ku celcelinayno laascaanood magaalo madaxdii dalkan Sooliya Sanaag iyo Cayn ciidamo aanu dhalan oo shaqul ku lahayn oo ku soo duulay yaa 4 sano ugu dambeysay hadda gacanta ku hayay waxa maanta ay ku soo qamaamayaan ee u soo baxsanayaan waa magaalada Buuhoodle Allahumma hal ballaqtu fashhad waxaan rajaynaynaa idinkuna sidaas leeg inaadna taqaaniin dalka yagana taqaaniin muran iyo intaasu gelin laba kuma lulanaysaan haddii aad fidmadana aad wadaan iyo dabkan aad shidaysaan kuma badbaadaysaan dagaalkuna kuma joogi doono cari dhaaf iyo soolseenid iyo muuse qudeer iyo hurfadhi iyo kalshaala kuma ekaanayo waxaad ay noqon doontaa oo aad nagu kalifaysaan in allaale inta aynu dariska ka nahay dabkaasi inuu gaadho waaba ay u eg tahay haddaad taa ku tala baxaysaan oo falliwaalida aad wadaan inayba intaa ka sii badato ma aha in laydinku hanjabayo ma aha inaanu waxaan jirin idiin sheegayno waa lays yaqaan waxaan leenahay walaalayaalo ka waantooba annagaa nabad rabna annagaa u dhabar adeegana haddiise aad ka waantoobi weydaan wixii meesha ka yimaada eedeedii idinkaa leh
bulshaweynta caalamkana waxaan u sheegaynaa xuquuqul insaanka waxa maanta qarnigii 21aad adduunku isku raacsan yahay qofka ibni aadanka ama bulsho ama ummad dhani inay xuquuq leedahay xuquuqdayada cid ku tuman kartaana ma jirto daldurugsi nama hayo xuquuqdayadaanu rabnaa wax walbana waa u huraynaa xuquuqdayada wax walba waa u huraynaa dadka durbaanka loogu tumayo xuduudkan soo xidhaynaa oo yoocadan tegaynaa oo buuhoodlaan gacanta ku qabanaynaa waa ina waxba kama jiraan ummadayaan la waalin waxa kaliya anigu aan xoojinayaa ereyga cali uu ka hadlay oo aan ugu jeedinayno baaq nimanka salaadiinta ah ee waqooyi galbeed gobolada waqooyi galbeed jooga iyo waxgaradka ayaan baaqaas u jeedinaynaa inay matalan wax ka qabtaan dibka ay wadaan maamulka gobolada waqooyi dibka uu wado oo ku wado dadka degan gobolada sool iyo sanaag iyo cayn ee baadilka ee maalin kastaba istaba jooga waxa weeyaan waxaad garanaysaan in ay ciidamada maamulka Hargeysa ay ku socdaan maalin kastaba jabka ku dhacaya waa mid xaq darro weeya sidaa daraadeed waxaan u soo jeedinaynaa salaadiinta gobolada iyo waxgaradka iyo culamaa u diinka inay wiilashooda maalin kastaba gardarrada lagu soo hawlgelinayo inay ka waantoobaan oo caruurtooda iyo dhallinyaradooda maalin kastaba dhimanaya ay khasaaraha ka badbaadiyaan oo ay ka waantoobaan oo ka celiyaan dadka ay xaqdarrada ugu soo duulayaan oo caruurta iyo maatida maalin kastaba ku laynaya gardarrada taas waxa weeye waa baaqaan u soo jeedinayno horeyna aan ugu soo jeedinay salaadiinta iyo waxgaradka ee beelahaas waxaan kaloo aan soo jeedinaya oo aan u soo jeedinaya deegaanka gobolka Cayn dadkiisa waayeel iyo salaadiin iyo waxgaradba in la ilaaliyo midnimada waxa weeyaan waxa guulaha ku gaaraysaan waxa weeye waa midnimo haddii tafarruq yimaado iyo iskhilaaf haba yaraatee wax guulo gaaraysaan male aad iyo aad baana waxaad ugu mahadsantihiin guulaha istaba jooga ee aad hananaysaan maalin kastaba ee geesinimada leh ee aydin u kala harin miyi iyo magaalaba waxa weeyaan taasi ma dhammaan waa mid taagana waxa weeye waxaan idinku boorinaynaa oo aad idinku boorinaynaa waa midnimo iyo wadajir iyo geesinimada aad maalin kastaba gardarrada laydinku samaynayo aad kaga hortegaysaan aad iyo aad baan taa idinku boorinaynaa haddaanu nahay golaha sare ee dhaqanka ismaamuleedka Khaatumo State of Somalia waxa weeyaan way idinku hambalyeynayna waxaanu tacsi u diraynaa wixii ku shahiiday dagaalada baadilka dadkii ku shahiiday rag iyo dumarba waxaanu leenahay awil khayr qaba Allah inaka siiyo ilaahay jannadii ugu bisharay gardarro iyo baadil baa lagu dilay oo lagu laayay marka ilaahay waxaanu ka baryeynaa awil celin dhammaanteenba inuu inaka siiyo waxaan kale oo ugu baaqaya beelaha ka tirsan maamulka Khaatumo State of Somalia dhammaantoodba ha arkeen oo ha ku kaceen oo ha arkeen baadilnimada lagu samaynayo ama dhulkoodaba lagu haysto waxa weeyaan waa in laga dhiidhiyaa waa in la isku duubnaadaa waa in mid la noqdaa maal iyo maskaxba in la mideeya dibad iyo gudaba weeyaan innaku samayn mayno sida dadkaan ay samaynayaan oo baadilka u samaynay innaku samayn mayno laakiin inaynu sharafteenna iyo cirdigeenna aynu badbaadino waa lagama maarmaan waxa weeye casrigan maanta la joogo oo adduunku meeshu marayaan ognahay in la leeyahay khasab ayaanu idinku meel marina idinku gumaysan taas xaq ma aha waxa weeyaan culimadu iyo diintu ilaa shalay aad iyo aad baan ugu mahadinayaa sida ay u sheegayeen xaqa iyo baadilka lagu hayo in laga dhidhiyo lagana jahaado waxa weeyaan
sidaas ayaanu leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.